السلام عليكم صاحبيال. كان waa muuqaal la yaab leh dhanka kale waa mid naxdin iyo argagax leh. Waa afar ka mid ah masaska ugu khatarsan caalamka ee loo yaqaan cobra. Waxay si aan caadi ahayn u ilaalinayaan ilmo yar oo dhexdooda hurda. Muuqaalkan ayaa ka yaabiyay qof kasta oo daawaday, isla markaana su'aalo badan la iska weydiiyay. Su'aasha ugu weyn waa sidee arrintan ku dhacday. Haddii aad u fiirsato muuqaalka, waxa ilmaha yar soo qabsanaya mid ka mid ah masaska. Waxa uu ugu ciyaarayaa sida boombalaha, balse masasku ma aha kuwa danka galaya cunuga yar. taa beddelkeeda waxay si feejigan u ilaalinayaan cid kasta oo soo dhawaata ilmaha yar. Arrinta aan weli la ogeyn ayaa ah masaskan ma laga saaray miciyaha sunta badan, sababtoo ah waa kuwa markasta waxyeello u geysan kara ilmaha yar. Haddiise aan laga saarin, cunugan yar waa mid u dhaxeeya nolol iyo geeri. sababtoo ah masaskani waa kuwa weerara wax kasta oo ay u arkaan inay noloshooda khatar ku yihiin. Su'aasha la isweydiinayo ayaa ah xagee jiraan waalidiinta ilmaha yar. haddaba kadib markii muuqaalkan soo shaac baxay ayaa la ogaaday in arrintan ay wax caadi ah ka tahay meelo badan oo qaaradda Aasiya ka mid ah iyo waddanka Hindiya. waxaana la sheegay in masaskan loo tababaro ilaalinta carruurta, isla markaana waalidiintu carruurtooda uga sii tagaan marka ay shaqo degdeg ah ku timaado. haddii aan wax ka ogaano maska cobra, waa mid ka mid ah masaska ugu khatarsan adduunka, waxaana badanaa laga helaa kaymaha qaaradda Aasiya. dhererka cobraha qaangaarka ah ayaa gaari kara ilaa 5 mitir. suntiisuna waa mid aad u khatar badan, waxa ayna qaninyadiisa kaliya dili kartaa maroodi qaangaar ah. dhanka cuntada waxa uu badanaa maskani ugaarsadaa masaska kale ee ka yaryar iyo mararka qaar dhadhamisada. wadamo ay ka mid yihiin Myanmar, Sri Lanka iyo Hindiya, waxa jira xaflado dhaqameed lagu soo bandhigo maskan, waxaana dhaqan u ah in madaxa laga dhunkado isla markaana lala ciyaaro.